أحمد عبد كارية وهالدور قيب كسوقاتي نبضينتا iyo isku haynta bulshada waxaan u ahaa ganacsade si weyn looga yaqaano deegaanada Soomaaliya siiba gobolada dhexe 12 Sebtembar sanadkii kalbaday ayuu isu soo taagay jagada madaxweyne ee Galmudug kadib markii uu yaqiinsaday in maamulku uu baahi u qabo dib u heshiisiin dhab ah iyo wax qabad hor leh oo taabagala waxaan u socdaal ku tagay deegaanada maamulka si uu bulshada uga xog waraysto baahiyahooda waxayna dhamaantood isla qaateen in boogta ugu daran ee ay ka ruqaansan leeyihiin ay tahay kaabayaasha dhaqaalaha iyo nabadgelyada waana sabab kale oo ku dhiirisay musharax qoorqoor inuu si laban laabo dadaaladiisa ku wajahan inuu majaraha u qabto Galmudugta marin habowday si loo helo Galmudug tayo leh oo talo midaysan ku socota tilmaanteeduna tahay meel tus leh oo tigaadu ku hortay waana tan u muuqata Axmed Cabdi Kaariye oo halku dhig ka dhigtay Galmudug loo wada dhan yahay si looga baxo kala qaybsanaanta madaxweyne qoorqoor wuxuu ballan qaaday inuu isu soo jiidi doono dhinacyada khilaafku ka dhaxeeyo si looga dhaliyo nabad gobolada kala duwan ee uu ka kooban yahay Galmudug Axmed Cabdi oo way aragnimo u leh dawladnimada ayaa sharaxaya wadiiqada uu u marayo si loo hirgeliyo kaabayaal dhaqaale oo dakhli soo xireeya si aan wax badan uga bedelno nolosha iyo dhaqaalaha deegaanada Galmudug waxaan diiradda saarayaa inaan sii ambaqaado mashaariicda horumarineed iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaale anigoo xoojinaya dadaal kasta oo lagu xaqiijin karo in isbeddel muuqda oo dhanka mashaariicda horumarinta iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaale wax looga qaban karo isagoo ka duulaya waayo aragnimada uu u leeyahay horumarinta maareynta iyo maamulka dekedaha waxa madaxweynuhu uu mudnaanta u horeysa siinayaa dhismaha dekeda Hobyo oo ka mid noqon karta ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan ee maamulka waxaan si gaar ah u ballan qaadayaa inaan mashruuca dekeda Hobyo siin doono ahmiyad iyo waqti suurtageliya inuu noqdo mashruuc dhab ahaan u hirgala insha Allah shaqa abuurku waa mas'alo kale oo uu u arko madaxweynuhu inay ahmiyadeeda gaarka ah leedahay isaga oo ka duulaya khibrad 10 sano ah oo uu u leeyahay dawladnimada waxa uu si cad u ballan qaaday inuu xoojinayo laamaha dawladda si loo helo cudud iyo caqli midaysan oo leh hadaf cayiman si dawladda Galmudug u noqoto mid guta waajibaadkiisii loo dhisay waxaan ka shaqayn doonaa dhamaystirka iyo tayeynta hay'adaha dawladda doorashadii maanta oo ah 2 Febraayo 2020 ka dhacday Dhuusamareeb ayuu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha 4 sano ee soo socota ee maamulka Galmudug waxaana xaqiiqo ah in Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor uu wax badan ka bedeli doono wajiga murugsan ee maanta oo uu horseedi doono marxalad cusub iyo Galmudug loo dhan yahay oo hal meel u wada jihaysan waxaan horseedi doonaa dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed oo gaarta guri walba iyo goob walba oo Galmudug ka mid ah waxaan ugu tagi doonaa goobtiisa ama gurigiisa ama meel kasta oo ku sugan yahay tabasho kasta oo siyaasadeed iyo mid bulsho oo Galmudug dhexdeeda ka jirta ganacsiga dalkeena cudurkiina daashaday daryeel caafimaad buu ku dabiibi